suldaan isagu iscaleema saaraya maalintaa isaga iscaleema saarayay warqadan lootaanyada ah ayuu Cabdulla Sacad go'aan ku soo saaray 13 caaqil iyo jiif ayaa ku saxan waxa dibadda nagaga timid arrin aanan qaadi karin oo la sameeyo suldaan aanu reerku isku waafaqsanayn iskuna raacsanayn go'aan horena uu reerku ka gaaray raalli kama nihin inuu kolba nin cimaamad iyo koofiyad soo qaato oo uu idhaa suldaan baanay annagoo ay عقاشة beesha Cabdulla Sacad waxaanu halkan doonaynaa inaanu ka iftiimino muxuynayto war miidiyaha ku jiray imika muddadanba oo ka hadlaya dhisme suldaan cusub oo la caleema saarayo laguna caleema saarayo magaca beesha Cabdulla Sacad annagoo ah cuqaashi beesha Cabdulla Sacad suldaanka la caleema saarayo annagu ma dawladana kamaan umaanan soo gudbin suldaan oo caleema saarayno dadkana umaanan soo bandhigin suldaan oo caleema saarayno horena way noo soo martay waqtigii hore ee aynu soo martay oo 2023kii reerku uu joojiyey suldaan isagu iscaleema saaraya maalintaa isaga iscaleema saarayay maantana waxaa noo muuqata cilo kale inay caleema saarayaan dabada ka wadaan haddii aanu nahay markaa cuqaashii reerka waxaanu xukuumadda u sheegaynaa in reerku go'aan waqti hore ka gaadhay go'aankii ay gaadheen oo 23kii ana kaa yahay in aanu reerku u baahnayn 2024kii raalliga ahaada taariikhda reerku wuxuu leeyahay 13 caaqil iyo jiif 13kii caaqil waraaqdaasay saxay ma jiro wax suldaano iyo caaqilo oo midna u baahan yihiin oo cidnaba iyagana ka soo go'day cidna u gudbiyeen oo ay sameynayaan sidaa darteed dhaqdhaqaaqa maanta la dhaqajo waxaan dawladda ka codsanaynaa xukuumadda wasiirka arrimaha gudaha madaxweynahana ogeysiinayna in arrintaa la joojo arrintaa waxaanu uga magannahay xukuumadda in la joojiyo meelay ka socota garan mayno haddii la joojin waayo sidaa ku socoto wixii ka yimaada annagu mas-uul kama nihin waxay noqoto waxa qaadi doona cidda arrintaa joojin weyda qaadatay wadatay fushata halkan waxaan isugu nimid ragaygan cuqaasha ee dhaqankii Cabdulla Sacad waxaan halkan isugu nimidnay arrin waxa weeyaan aan ka maqalay miidiyaha arrinkan miidiyaha ka maqalay ee ah suldaan baa la caleema saaraya Cabdulla Sacad haddaanu nahay ugaasna waa lahayn suldaanna waa leenahay jiif caaqilna waan leenahay cuqaalna waan leenahay reerka Cabdulla Sacad waxa hoggaan u ah dhaqanka waxa dhaqanku arrinkan horu noo soo marayaan annaga noo soo maray tan oo kala hore u timid waqtigaa hore ay timid annagoo isku dhan dhaqankii Cabdulla Sacad cuqaashii iyo jiif caaqiladii waxaanu ka yeelannay shir aanu u dhannahay oo dhaqankii Cabdulla Sacad u dhan yahay waxbaan iska weydiinay waxaananu ka qaadannay go'aan inaanaan hawshaa shaqo ku lahayn oonaan baahina noo hayn talana annaan meel iskugu annaan macnaha annaan ka dhiganin
taladaanu ka dhiganay waxa weeye warqadan nootaayada sharciga waa nootaanya weeye warqad la iska qorqoray maaha warqadda nootaayadii waa wax malaayiin dollar dadku ay ku kala qaataan wasaaradda cadaaladday ka mid tahay ee dawladda warqadan nootaanyada ayuu cabdilla sacad go'aan ku soo saaray 13 caaqil iyo jiif ayaa ku seexan magacyadoodii halkaasay ku qoran yihiin waa dhaqankii cabdilla sacad weeye warqadaas wax ka dambeeyey oo cabdilla sacad aw talayska mar dambe iskugu yimid ma jirto imikana tii go'aanka cabdilla sacad ka qaatay ayaan maqlaynaa cid wadata ma garanayno waxa weeye waxaanu ka codsanaynaa annagu dhaqan baanu nahay oo mar walba waxaanu hoos tagnaa wasaaradda arrimaha gudaha ayaa line ministry noo ah waxa weeyaan xukuumaddii kasta oo timaada wasaaradda arrimaha guduhunbu dhaqanku hoos taga waxaanu ka shaqaynaa waa amniga gudaha waxay ummaddu ku nabadgelaysa hadday laba qof isdilaan cidda xallisa ee hawshaasi u timaadaa waxa weeye waa dhaqanka iyo cuqaasha waxaanu haddaba mar walba xukuumaddii joogta unbaa annaga noo dawladdii cuqaasha waa annagu xisbi ma yihin siyaasiyiinna ma yihin waxaanu nahay cuqaashii dhaqanka amniga ka shaqaysa marba xukuumaddii joogtana la shaqaysa line ministerina wasaaradda arrimaha guduhu tahay waxaa weeye haddaba arrinkaas oo cabdilla sacad go'aankiisa uu kaa yahay waxaanu xukuumadda ka codsanaynaa wasiirka arrimaha gudaha iyo badha saabka in arrinkaasi si degdega lanooga joojiyo si degdega in lanooga joojiyo ayaanu ka codsanaynaa haddii la joojin waayo oo annagoo dhaqankiiya hawshaasi ay xukuumaddu dee tixgelin weydo dee waxaanu arki doonnaa si kale ayay noogu muuqan doontaa yaa si kale ayay noogu muuqan doontaa annagoo ah uqaashii dhaqanka ee beelweynta cabdilla sacad waxaanu goobtan iskugu nimid in aanu baaq u dirno xukuumadda jamhuuriyadda somalilan oo garwaddanka ka yahay cabdiraxmaan ciro wasiirka arrimaha gudaha iyo badha saabka baaq ayagaas oo daaran waxaanu reerku isku waafaqsanayn oo aan tala midaysan laga gaadhin oo aan loo dhammayn in lasoo dhex dhigay iyada oo la doonayo iyada oo aanay baahi reerku jirin oo uu reerku leeyahay suldaankii guud ee reerka ugaaskii guud ee reerka iyo jeef caaqiladii iyo caaqiladiiba inta dhaqanka ee reerka wax baahi oo jirto oo cid loo qabaa maanta ma jirto suldaankii guud baa jooga jeef caaqiladii iyo jeef caaqilkii guud ee reerka jooga waxaa dibadda nagaga timid arrin aananu qaadi karin oo la samaynayo suldaan aanu reerku isku waafaqsanayn iskuna raacsanayn go'aan horena uu reerku ka gaadhay oo ay ka soo saareen bayaan warqad cad oo ay u keeneen xukuumadda qolada dhaqanku taariikhdeeduna ahayd bishii 25 bishii 9aad 2024 baaqaasi oo daarnaa in aanu reerku u qabin baahi suldaan la caleema saaro iyagoo ay joogaan habkii haweentii dhaqanka oo hurgaanka u ahaayeen suldaanka guud iyo ugaaska iyo cuqaashba 13 caaqil ee saxeexay waxa ay go'aanka ku saareen in aanu reerka baahi u qabin suldaan imika la caleema saaro ta kale shir ka dambeeyey ama kulamo ka dambeeyey oo reerku iskugu yimaadeen oo ay bayaan ka soo saareen aanay jirin sidaa darteed waxaan baaq u diraynaa xukuumadda iyo madaxweynaha uu garwaddanka ka yahay iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo badha saabkuba in ay joojiyaan sida ugu dhaqsaha badanna ay nooga joojiyaan caleemasaarkaa suldaankaa la wado ee meel ka socda aananu garanayn waxaan ka salaamayaa ummadda muslimiinta Soomaaliland dhamaanteed gaar ahaan cabdilla sacad iyo dawladda wixii ay qusaysaba barnaamijka halkan aan ka wadno waxa weeyaan arrin dhaqan ayaa meeshan la keenay arrinkaasi oo aanu dhammayn uqaashii iyo maxaa ku rahdaa madax dhaqameedyadii kale iyo maxaa ku rahdaa bulshadii cabdilla sacad inta midna aanu dhammayn ayaa la keenay baryaha la wadwado miidiyaha arrin hore ayaa yimiyo sida la sheegay iyo sida aan hore u ogeynba uqaashi isku raacsaneed oo nootaayada warqadda ah 13 caaqil iyo dhammaan ay ku wada jiraan
arrinkaasoo markii horena lagu qaadacay tiin baa haddana dib loo soo celiyey iminkana dee wax go-aana lagama gaarin hore oo dee meel isugu yimi may jirin sidaa darteed dowladdu waxaan ka codsanaynaa in arrinkaa dee ma qaadi karno dee maxaa kure dhowr iyo toban suldaan iyo dhowr iyo intaasoo maxaa kure dhowr suldaan iyo dhowr caqiil waxyaaba ma qaadi karno horaa loo diid macal salaadiinta iyo macal cuqaash wixii horaa loo joojiyey tan lafteed dhowr mar hore timi waa la joojiyey iminkana sidii si la eg marka waxaan ka codsanaynaa inay naga joojiyaan haddii aanu nahay cuqaasha beesha cabdilla sacad reerku suldaan iyo ugaas iyo caaqillayntaba uu leeyahay waxa dhaqan ku ah weli waxaanan hore u arag niman dee bannaanka isku calayma saara oo idhaa suldaanmaannay horena umay dhicin ka dhaqan ahaan waxaanu madaxweynaha ka codsannaa iyo badho saabka gobolka iyo wasiirka arrimaha gudaha inay arrinkaa ugubka kuwa dhaqanka inay naga joojiso halkaas 13 caaqil baa ku saxeexan horena waanu joojinay maantana ka xukuumad ahaan waxaan leenahay naga jooji raalli kama nihin inuu kolba nin cimaamad iyo koofiyad soo qaato oo idhaa suldaan baanay inna laga joojiyaa baan doonnaa ka xukuumad ahaan